bartamaha bishii May ee sanadkan 2022 labeentii siyaasadda ee Soomaaliya ayaa ku tartamay jagada madaxtooyada ee ugu sarreysa dalka. Xasan Sheikh oo tiirar adag cugsanayay ayaa hareer maray saaxiibadii, waxaana loogu hambaliyay xilka culus iyo duruufaha isbarkan ee Soomaaliya ka samata bixintooda. Xasan Sheikh farxad badan ayaa wajigiisa ka muuqatay markii uu yaqiinsaday in bulshadii kala noqotay kalsoonidooda ay dib ugu maamuseen hoggaanka dalka. Maalmo ka hor iyo muddo lagu qiyaaso 7 waxa juuqda gabay madaxweynihii oo wariyo wacaalba laga waayay. Mucaaradku waxay u cugsadeen in madaxweynuhu xanuun la diifaysan yahay ilaa heer ay gaarsiiyeen inuu geeriyooday. Afhayeenka aqalka fiile ee looga taliyay Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa bulshada farwaaweyn ugu iftiimiyay in madaxweynaha corona haleelay waqti xaadirkan uu badqabo. safarkii ugu horeeyay Xasan Sheikh ugu baxay Imaaraadka intii la caleema saaray waxa uu shaki badan ku dhaliyay bulshada faaqida siyaasadda iyo caamada warbaahinta ka dhowr sugta. Xogo la isku kabkabay ayaa u muuqaalay kaadeen madaxweynaha Imaaraadku ku sasabay Xasan Sheikh xiriirka Israa'iil. Markii bulshadu mutiinta heshay waxay u ciirsadeen sababaha uu ku maqnaa madaxweynuhu inay ahayd arrintaas. Imaaraadka Carabta oo dunida Islaamka ku eedeeyaan inuu yahay dambalka sahaayinada ee dharka Carabta xidhan ayaa dawlado badan kula taliyay in xiriir diblomaasi la sameeyaan dawladda dhulboobka ee Yahuudda. Xidhiidh Soomaalida iyo Yahuudda dhexmara. maalmo yarun koor waxa wargeysyada Israa'iil lagu daabacay warbixino bahdilo lagu sheegay in Soomaalidu u ooman yihiin xidhiidhka dhaqan-dhaqaale ee Yahuudda. Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi safarkii uu ku tagay dalka Mareykanka ayay ku mijaxidheen in helitaanka Somaliland kursi ku leh golaha ammaanka iyo qaramada midoobay uu xidhiidh ula samaynayo dawladda sahaayinada ee bariga dhexe. Jawaabtii madaxtooyada Somaliland ayaa xambaarsanayd beenaynta wararka sheegaya arrimahaas. Soomaaliya safarkii Mudane Xasan Sheikh waxa uu bulshada u xambaarsanaa dhiilahana qadhufatay oo madmadow gelisay dhabadii awooyaasha iyo astaantii suubanayd ee kaalinta ay ku leeyihiin Soomaalidu diinta Islaamka. Wargeyska The Times of Israel ayaa diyaariyay warbixin uu ciwaan uga dhigay madaxweynaha Soomaaliya oo baarlamaankiisa horgeyn kara xiriir dhexmara Yahuudda iyo Soomaalida. muxuu yahay bartilmaameedka Israa'iil ee Soomaalida? In bariga dhexe laga dhiso dawlad huwan magaca Yahuudda oo seeko ah waa ujeedooyinka Israa'iil iyo reer galbeedka. Xayndaabka xuduudeeda ay boobka kaga haystaan Falastiiniyiinta iyo Carabta kale cudud military oo ay danahooda siyaasadeed ku hirgeliyaan waxay galka ka siibaysaa in la helo Yahuud bariga dhexe lagu suuba salaaxo. heshiiskii Carabta iyo sahaayinadu kale saxeexdeen sanadii 1967 ee nabadgelyada waxa uu Yahuudda u xalaalaynayaa inay tantoomadooda xadiidka ku qabtaan dhulka ay badheedhka uga qaadeen Falastiiniyiinta iyagoo awood dheer u heli kara dib u dejinta bulshada Falastiiniyiinta iyo ku beeridda muwaadiniin Yahuudda dhulkaas. heshiiskii sirta ah ee Sykes-Picot dhex marayna dawladaha Faransiiska iyo Britain sanadii 1916 ayaa adhaxda ka jabiyay midowgii Carabta iyo dawladdii Cuthmaaniyiinta. waxaanu kala qoqobay wadamadii xigaalka ah ee bariga dhexe isagoo wadaha laqmareena ka dhigay sohdimaha Carabta loo kala ooday. Falastiiniyiintu waa masaakiinta ku leeday kuna khasaaray heshiiskan dhulkoodii. Yahuudda oo sanadkii 1948 wadanka Falastiin ku soo galay qaxoonti ahaan maanta waxay baad kaga haystaan arladooda iyagoo garab ka helay reer galbeedka. xuquuqda aadanaha ee gacan ku rimiska kuna doodaan dadiyagoo u ololeeya in Yahuudda takoor baan lagu hayo loona baahan yahay dawlad magacii nabigeena lagu kabay oo bariga dhexe ka jirta. heshiiska Carabta iyo sahaayinada abku doonaha sheegto xisbigu doonaha ka soo jeedo madaxweyne kasta oo Mareykanka ka soo taliya waxa uu ordayaa heshiis Carabtu la gasho Yahuudda. Biden waa khaliifka diibkii sunaysnaa ee Donald Trump oo isagu iska dhigay oday samatalis oo xal ka raadinaya rajaha gaastay. maalmihii la soo dhaafay bariga dhexe ayuu safar ku marayay Ukraine Ruushka ayaa darayo ku haysta. wadamada Imaaraadka Sacuudiga Bahrain iyo dawladaha ay hadhaca u yihiin ayaa heshiis la gaadhay Israa'iiliyiinta. ururka Xamaas ee u dagaalama sharafta Falastiiniyiintana waxay u diiwaan geliyeen koox xaq jir oo ka jirta bariga dhexe. Yahuudda ayaa moodaa in wadamada Afka Carbeed ay soo xiro gelisay una hanqaltaagayso wadamada kale Islaamka. Soomaalida iyo Yahuudda maxaa iska galay? Soomaalidu waxay ku yaaleen mandaqad istiraatiiji oo aad muhiim u ah. marka laga yimaado jasiiradda Madagascar waxay leeyihiin badda ugu dheer qaaradda Afrika oo dhan. dawlad awood leh oo Soomaaliya ka hana qaada waxay carqalad weyn ku tahay danaha reer galbeedka. sababtaas ayay cunaha uga taagayeen horumarka dawladda ee Soomaaliya. sanadkii 1969 iyo shirqoolkii madaxweynihii Soomaaliya marxuun Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu ra'iisul wasaarihii xilligaasi marxuun Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal uu u doodayo xuquuqda Falastiiniyiinta iyo kursiga dawladda Shiinuhu ku yeelan karto qaramada midoobay. dawladdii kacaanka iyo xukuumadihii ka dambeeyay waxay ka soo horjeedeen Yahuudda. sidoo kale wadamo badan oo Afrikaan ah ayaa Soomaalida ku daba tukada.
lana ayidsan kumayalaadkaanta heshiis lala galo yuhuudda inaysan suurtagal ahayn. Soomaalida oo dhoofisa xoolaha ugu badan waxa ka iibsada wadamada Carabta, balse mararka qaar ayaa laga iibsan waayaa xoolaha ay seylada keenaan. taasina waxay ku furtaa albaabka doorashada oo ku lifaaqan suuqa adduunka. Yuhuudda ayaa ku hareysatay inay si damaanad leh uga iibsan doonto ama ay suuq la raadin doonto, balse wali lama helin cid ku dhiirata. dadka falanqeeya siyaasadda ayaa u duway hadal uu madaxweynihii hore ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal uu ka jeediyay goob fagaara kadib markay soo gaadhay dhiilada in iibkii xoolaha Somaliland uu ku gacan sayday Sacuudigu. hadalkiisa waxay u mutiyeen inuu uga jeedo Yuhuudda. hanugu kalifina inaan idinka tashanno ma idin naqaan caadiyeynta xumaanta. qarniyadii tagay waxa dunida lagu habaari jiray in aadanuhiisa adoonsadeen. bugaagta taariikhdan waxa buux dhaafiyay dad saxaraha iyo omaska u jiiday sida ay xornimo u heli lahaayeen. dunidu waxay isku tilmaamtaa mid ka qurux badan tagtadii foosha xumayd, mid dhul baad iyo ciirsiba isku ah, balse xaqiiqadu way ka durugsan tahay intaas. mustaqbalka jiilalka cusub ee soo koraya ayaa midmadow badani dul hoganaya. muranka labka iyo dhadiga, falalka argagixisada, shirqoolada siyaasadaysan, xasuuqa ummadaan waxba geysan iyo boobka dhul hoy u ahaa dadkii ku dhaqnaa. kalitalisnimadii oo weji nashqadaysan yeelatay ku celceli xumaanta dhegta ayaa la qabsanaysa. siyaasaddaas ayay yuhuuddu wadaan inay islaamka kaga iibiyaan caadifadan geedka gaadhsiisnayn, iyagoo maalin iyo habeen bangantaalo la dhacaya falastiiniyiinta oo aan allahood mooye ciirsi kala haysan. carabtuna ilquudha ayay ka eegaysaa. haddaba daawada sidee ayay kula tahay xidhiidh dhex mara Soomaalida iyo Yuhuudda? faalladaada xagga hoose noogu reeb. We cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight